waxaa maanta xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya kulan ku yeeshay wafdi uu hogaaminayay sarkaalka u sareeya ciidanka Talyaaniga ah ee howlgalka uga maqan gudaha dalkaasi General Bartoloni iyadoona halkaasi ay ku yeesheen xog iswaraysi muddo socotay. kulanka ra'iisul wasaaraha iyo sarkaalkan Talyaaniga waxaa goobjoog ka ah xubno la socday Bartoloni iyo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya. kulanku markii uu soo dhamaaday kadib waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka gaashaandhigga Maxamed Sheekh Xasan Xamuud waxa uu faahfaahin ka bixiyay safarka sarkaalkan uu ku soo gaaray magaalada Muqdisho. magaalada Muqdisho yimid General Bartoloni oo ka socda dalka Talyaaniga. generaalkan oo ah sarkaalka ugu sareeya ciidamada dawladda Talyaaniga ku jira howlgallada wadanka dibadiisa. runtii oo ay ka mid tahay ciidamada Talyaaniga dibadda joogana Soomaaliya ayaa ka mid ah oo waxaana la jooga ciidamo oo tababar ka EU-da ay ka samayso xerada Jazeera. ciidan Talyaani ayaa jooga. wuxuu message ka waday kulli dawladdiisa sidii loo kordhin lahaa xiriirka joogtada ah ee ka dhaxeeya dawladda Talyaaniga iyo dawladda Soomaaliyeed. dhinaca kale wasiirka gaashaandhigga ayaa baaq u diray dad ku dagaalamay gobolka Gadow waxa uu wasiirku beeniyay in ciidanka xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ku jiraan dagaalkaasi iyadoona degmada Balad Xawo uu ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Ahlusunna wal Jamaaca. dadkii ku dhintay dagaaladii shalay daraadi ka qarxay magaalada Balad Xawo runtii waxaan ugu baaqayaa dadka reer Balad Xawo in ay joojiyaan dagaalada oo laga qayb qaato sidii nabadda iyo xasiloonida loo ilaalin lahaa. anaka runtii wasaaradda gaashaandhigga ahaan ciidan anaka aan leenahay oo dagaalka ku jira ma laha. qof laba way dhici kartaa maadaama deegaanka la joogo. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee gobolka Gadow jooga wuxuu joogaa magaalada Garbaharey. Balad Xawo zoonadeeda dad yar ayaa ka jooga. marka haddii arinta intaas ay sii dhaaftay heerka haddii aad sheegaysa ay gaari kartaa laakiin ilaa ay hadda ciidanka xoogga amarka uu qabo waxa way inuusan ka qayb galin wax alla wax iska hor imaada. Xasan Kaaf Abdiraxmaan, Puntland TV, Muqdisho.